isku soo noqdo waxaana qayaarta meel walba joogta mar kale muuqaal cusub aan ku eegi doono wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta ee suuqa kala iibsiga Erik ten Hag oo yiri Ronaldo iib maahan iyo wararkii ugu dambeeyay ka soo cusboonaanaya CR7 xidiga Paul Pogba oo dib ugu laabtay Juventus waxaana loo xiray lambarkii 10aad ee hore u qaadan jiray iyo Bayern Munich oo shakhsi la gaartay Delight Barcelona oo dalabkii koobaad ka gudbinaysa xidiga Ladies ee Rafinha iyo kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo tijaabada caafimaad marsiisay xidigooda cusub ee Raheem Sterling hadii aan muuqaalka shanoo la gari kana subscribe noo saar hadii aynu ku bilownana kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ee magaalada Bavaria ayaa shakhsi la gaartay daafaca Juventus ee lagu magacaabo Delight ayaa shakhsi la gaaray kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich laakiinse labada kooxood ee Bayern iyo Juventus wali ma aysan ka wada hadlin iibka ciyaaryahankan kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa ninkan fasaxday waxayna sugayaan dalab kaga yimaada kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich waxaa la sheegayaa wakiilada Bayern ka socda inay tageen magaalada Turin si ay wada xajoodo ula furaan kooxda kubadda cagta ee Juventus hadii ayna eegno dhanka kalena kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa dalabkii ugu horeeyay si uu gudbi doonto kooxda kubadda cagta ee Leeds xilli dalabkaas uu gaarayo 72 milyan Barcelona ayaa tilaabo u qaadaysa inay la soo saxiixato xidiga Leeds garabka kaga ciyaara ee Rafinha ninkan ayaa dalab hore waxa uu gudbisay kooxda kubadda cagta Chelsea Leedsna way aqbaleen laakiinse kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa ninkan danaynayso ninkan Barcelona ayuu rabaa Chelsea marabiyo marka taa ayaa dibka u keentay kooxda kubadda cagta Chelsea Leeds Unitedna dalabka inay aqbalayso ay u badan tahay hadii aynu eegno kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa tijaabada caafimaad maanta ku marsaysa magaalada London xidiga cusub ee Raheem Sterling ninkan ayaa kaga soo dhaqaaqaya kooxda kubadda cagta ee Manchester City wuxuuna ku soo biiraya gagada ay ku ciyaaraan Stamford Bridge kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa garab weerar cajiib ah hadda gacanta ku soo dhigtayo ninkan waa nin Chelsea ka tirsan ninkan Britishka ah ay lacag gaaraysa 45 milyan kaga soo qaateen kooxda kubadda cagta ee Manchester City xilli ay kooxda kubadda cagta Chelsea ku dhowdahay la saxiixashada daafaca Manchester City ee Ake Chelsea marka laba ciyaaryahan ay ka qaadayaan kooxda kubadda cagta ee City hadii aynu eegno dhanka kale Barcelona ayaa heshiis ka u kordhinaysa Ousmane Dembele ayaa aqbalay heshiis gaariya 2026 inuu u saxiixo kooxda kubadda cagta ee Barcelona ninkan ayaa waxa taageero weyn u ah Xavi oo macalinka Barcelona ah hadii aynu eegnana dhanka Manchester United macalinka kooxda kubadda cagta ee Manchester ee Erik ten Hag ayaa yiri Ronaldo iib ma ahan waa ciyaaryahan ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Manchester waxa uu ka mid yahay ciyaartooyda xilli ciyaareedka dambe qorshaha weyn oo ah aynu ku duuleyno marka Manchester United ma doonayso inay fasaxaan ciyaaryahankan waayo waa xidigii xilli ciyaareedkii la soo dhaafay u dhaliyay 24 gool waa odaga ay ku shaqaysanayeen marka hadii aan muuqaalka channel la garay kana subscribe nasar